waxaa la yaabaa hooyada waqtigii uurka ee lagu sheego oo yeelato uurka ama cunuga oo caloosha u gala kediska ah oo jirkeeda isu bedelayo oo from qof normal ahaa to qof hormoonadeed u qasan yihiin oo hormoonadii oo idil ay wada qasan yihiin iyo qof jirkeeda marka hore caadi ahaa oo qofka dadka la dhaqma ahaa oo haddana moodkeeda uu qaldan yahay oo jawigeeda uu qaldan yahay qof markii hore ahaa weydkeedu uu iska caadi ahaa haddana inuu weydkeedi uu ku darsamo culays miisaankeedi uu zaaid u noqdo qof hormoonadeeda marka hore ay saxanaayeen oo haddana hormoonadii ka qaldan qof markii hore lablaba iyo matag aan lahayn oo sida dadka caadi ula dhaqmaayo haddana maalin walba matagaayo lablaboonayo waa cajiib sababtoo ah qof caadi ah sidaa ma noqoni karo maanta waxaan rabaa marka inaan inla wadaago 5 caabuq oo ku dhici karo hooyada lagu sheegi karo xilliga uurka ay leedahay oona saameyn weyn ku yeelani kara dhanka cunuga saameyntaasi ay noqoni karto marar qaarkood inay hooyada cunugii ay waayso oo cunugii uu ka dhinto oo cunugii caabuq lagu sheego markuu dhashto oo cunugii uu koomo uu ka galo maxaa la yiraahdaa NBU-ga nursery dhalada uu ka galo NBU-ga la geeyo waxaana idil 5tani caabuq ayaa ku keeni karta haddii aad hooyo ah tahay waxaana la yaab leh waa wax si kadis basiid ah aad iskaga daaweyni kartid oo intaad uurka aad qaadin aad iska fiirini kartid qaarkood qaarna xilliga uurka hadday kugu dhacaan aad si basiid ah aad ku daaweyni kartid marka haddii aad hooyo uur mise hooyo ka fikirayso cunugeeda hooyo rabto inay uur ay yeelato haddaad tahay muuqaalka dhammayso waad fahmi doontaa 5tani caabuq waxa ay kala yihiin sababta ay ku yimaadaan ay kugu dhacayaan caabuqa ka dambeeya caabuqani inuu kugu dhaco cayayaanka ka dambeeya inuu kugu dhaco waxyaalaha lagaaga baahan yahay adiga hooyada ah in aad samaysid iyo waxa aad kula tacaali kartid dhanka daawo haddii la dhaho waxaanu idil halkani ayaan kula wadaagi doonaa insha allah muuqaalka dhamayso ilaa iyo dhamaadka hana ka iloowin channelka inaad subscribe like shareka aad noo saartid u gudbi asxaabtaada ha ka faa'iidaystaan muuqaalka iyo muuqaalada kaleba si ay u gaarsiiyaan cilmiga dadka uu gaarin haddana u guda galno barnaamijka meelnaha aadin fadlan hana ka laabanin video sidaan hordhacaan kugu soo sheegay markii hore caabuqyadani waa 5 midka koowaad aan u guda galo marka waa caabuqo ay Soomaalidu u taqaano cagaarshowga caabuqani cagaarshowga waxaa la yiraahdaa hepatitis B viruska caabuqani waxaa koos gareeya ama wuxuu ka kooban yahay waa virus asigoo idil viruskani magaciisa waxaa la yiraahdaa hepatitis marka from the word hepatitis muxuu yihi marka hepatitiska haddii lagu macneeyo waxaa waaye bararka oo beerka ku dhaco beerkii ayaa bararaya bararkanina waxaa u keenay viruska loo yaqaano hepatitiska hepatitiska sidiisba noocyaal badan buu kala leeyahay hepatitis A baa jiro B baa jiro C baa jiro ilaa iyo hepatitis DE baa jiro laakiinse hepatitis B-ga iyo hepatitis C-ga ayaa ugu daran oo saameyn weyn ku yeelanayo hooyada uurka gaar ahaan hepatitis B-ga aan u guda galo marka halkeed ka qaadi kartaa hepatitiska ama siduu kugu dhici karaa hepatitis B-ga hepatitiska waxa uu qofka ku qaadi karaa dhanka galmada waa midda koowaad hooyadii haddii odaygeedii uu qabay hepatitiska sidaa uu kugu dhici karaa cunugina saameyn buu ku yeelani karaa arrinta labaad siyaabaha labaad aad ku qaadi kartid hepatitiska waxaa waaye haddii dhiigga lagugu shubo oo qof dhiiggiisa hepatitis qabay haddii lagugu shubo ama lagugu transfuse gareeyo asagana wuu kugu dhacayaa
hepatitis-ka marka saameyn noocuu kugu yeelan karaa adiga iyo cunugii. Xilliga uurka aad ku jirtid haddii hepatitis-ka lagugu sheego waxaa dhici karta fuul cagaarshow inuu kugu dhaco oo adiga iyo idil jirkii aad jaalle aad ka noqotid oo aad noqotid qof hindhihii jaalle aad ka noqotid oo siyaabooyin badan uu kugu dhaco uu soo manifest gareeyo. Dhanka cunuga hepatitis-ka saameyn weyn buu ku yeelan karaa. Wuxuu ku keeni karaa in aad adigii cunugii uu kaa soo celiyo oo diliin uu kugu dhaco. Cunug meyd ah inaad dhashid. Cunuga sida waxa loo yaqaano cunugii inuu premature aad ku dhashid, prematurity aad ku dhashid waqtigiisa isagoo gaarin aad dhashid. Mise saameynta kale uu ku yeelan karo cunuga waxaa waaye cunugii koriinka inuu ka reebo oo cunug oo waqtigiisii gaarin koriinkiisina sida saxda ah oo garaamkiisi, kg-giisi, miisaankiisi ka yar inaad dhashid. Maxaad ku daaweyni kartaa marka hepatitis-ka? Waa inaad first intaad marka uurka aad qaadin ka hor in aad adiga iyo odigaaga aad isbaartiin. Taasi hadday noqoni wayso haddii lagugu sheego adigoo uurki leh in waxaad sameyni kartid waxaa waaye in adigii aad uurka aad dhamaysatid cunugii markuu saan u dhashto in la siiyo ka hortagga vaccine-ka hepatitis-ka. Taasina cilmigaasi waqtiga lagugu sheegay dhakhaatiirta ayaa si fiican kugu sharxi doono waxa aad sameyni doontid. Infection-ka labaad, caabuqa labaad oo number 2-ga ah waxaa waaye waxa loo yaqaano toxoplasmosis-ka. Toxoplasmosis-ka waxaa ku keeno waxaa laga qaadaa mise cayayaanka keena waxaa la yirahdaa Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii sidiisa waxa uu kugu dhici karaa ama aad ka heli kartaa sida cayayaanka mise waxa loo yaqaano cats-ka, bisada ayaad ka qaadi kartaa. Sidoo kale waxaad ka qaadi kartaa bisada saxaradeedii ayaad ka qaadi kartaa. Waxaadna ka qaadi kartaa cunada hilibka oo si fiican loo karinin. Waxaad ka qaadi kartaa sidoo kale hilibka gaar ahaan idaha ah ayaad ka qaadi kartaa haddii uu cudurkii uu ku jiray oo cayayaankii uu ku jiray halka ida. Waxaa kale aad ka qaadi kartaa cayayaanka loo yaqaano ama hilibka loo yaqaano anaga maan cuno laakiin dadka ajnabiga naga ah ayaa cuno pork meat-ka waxa loo yaqaano hilibka doofaarka sidoo kale aad ka qaadi kartaa asagoo si fiican u karsanen haddaad cuntid. Marka muxuu ku keenayaa marka Toxoplasma gondii-ka wuxuu ku keeni karaa cunuga dhankiisa inuu maskaxdii uu koriinkii maskaxda uu cunugii uu ka qabsado cunugii maskaxdiisii ay kori wayso oo dhibaato sidii ay kugu imaado. Sidoo kale waxaad ka qaadi kartaa wuxuu ku keenayaa in uu saameyn ku yeelado dhanka dhagaha cunuga. Sidoo kale hindhaha inuu saameyn uu ku yeesho iyo ugu dambeyntii inuu cunugii haddii uu si xun u saameeyo waa in antibiotic loo bilaabo daawooyin antibiotic loo bilaabo xilliga uurka aad leedahay. Waadna u gudbin kartaa cunugaaga labada infection-ba hepatitis-ka iyo waxa la yiraahdo toxoplasmosis-ka labadaba waad u gudbin kartaa. Waana vertical transmission baad ugu gudbin kartaa hooyadii hadday qabtay cunugii toos ayuu ugu dhacayaa. Saddexaad waxaa waaye caabuqa loo yaqaano listeria-ga mise listeriosis-ka. Listeriosis-ka waxaa keena caabuq cayayaan loo yaqaano Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes-ka marka maxaa uu dhibaato ahaan ku keeni karaa mise intee laga qaadaa cunooyinka aan karsanen oo process-ka ah oo karsan laakiin la xiray oo bac lagu xiray oo meelaha lagu gadgado ayaa badi laga qaadaa. Sidoo kale waxaa laga qaadaa biyaha oon si fiican loo daaweynin aad cabtid biyaha daaweysanen aad cabaysid waa laga qaadaa. Sidoo kale saxarooyinkana waa la iskugu gudbiyaa oo dhanka musqulaha ah mise waxa saxarada ayaa sidoo kale looga qaadi karaa. Marka maxaa dhibaato ku keeni karaa listeriosis-ka? Listeriosis-ka wuxuu ku keenayaa inuu diliin kugu dhaco inuu cunugii still birth wax la uu kugu rido oo cunugii asagoo meyd ah lagaa soo saaro. Sidoo kale cunugii dhimashadiisii iyo xanuumoyin dhibaatooyin kale oo inuu ku keeno ayaa laga yaabaa haddaad iska daaweyni waysid. Daawadiisana
waa ina antibiotic isticmaashid oo safe ah oo xilliga uurka cunugana dhibaato u gaarsiinaynin haddiiba lagugu sheego listeriosis-ka. maxaad sameyni kartaa marka inaad iskaga ilaalisid? waa cunada ayaad iska dhaqaysaa hadday wasaq ay tahay. sidoo kale waxaad iska ilaalinaysaa cunooyinka xirxiran oo bacyaha mise packdaga ah processka oo xiran ayaad iska ilaalinaysaa. caanaha sidoo kale process dairyga ayagana waad iska ilaalinaysaa maadaama mostly hadda si fiican loo daaweynin ayagana dhibaatooyin inay ku keenaan ayaa laga yaabaa. asxaabi ha iloowina channelka subscribe, like and share. arrinta kale caabuqa kale oo maaragtay oo caabuqa afraad ah waxaa waaya caabuqa loo yaqaano hab simplex viruska. hab simplex viruska mise hab genitalka wuxuu keenaa waxa loo yaqaano wuxuu ku dhacaa xibinta taranka genitalska meesha loo yaqaano ayuu ku dhacaa. habskan waa virus wuxuu leeyahay type 1 iyo type 2ga. hab simplex viruska marka wuxuu saameyn ku yeelanayaa dhanka hoose xibinta taranka wuxuuna ku keenayaa in boogo meeshii kaaga soo baxaan loo yaqaano blisterska. wax biyo ku jiraan oo hoostaas iyo camburo inay kaa soo baxaan oo dhanka hoose ah. hab simplex viruska marka dhibaatooyinku ku keeni kara waxaa waaye mostly horta intaan dhibaatooyinka gaarin sidee lagu gudbiyaa cudurkani hooyadii ay ku qaadi kartaa. cudurkani sexually ayaa lagu kala gudbistaa, gogasha ayaa lagu gudbiyaa. hooyadii haddii qof qabo ninkeedii uu qabo in maaragtay sidii ugu transmit gareeyo ayaa laga yaabaa, waana sida saxda ah ugu transmit gareeyo. marka muxuu ku keeni karaa hab simplexka hadduu maaragtay very severe kugu noqdo marar qaarkood dhakhaatiirtu waxay sameeyaan haddii uu zaa'id uu kugu yahay oo uurna aad leedahay dhalmadiina ay kuusoo dhawaatay marar qaarkood dhakhaatiirtu waxay sameeyaan inay c-section lagugu sameeyo qaliin lagugu sameeyo sidii aad cunugii ugu gudbinin marka aad dhalaysa caadiga ah. tanna qaliinkiina lagu kala badbaadiyo labadiina adig iyo cunugii haddii uu ku dhicin. cunugii hadduu ku dhashto marka hab simplex muxuu saameyn wuxuu ku yeelan karaa jirkii oo idil inay camburo ay kasoo baxaan, maskaxdiina uu damage uu ka gaarsiiyey ayaa laga yaabaa maadaama uu nerveska u raaca viruskani badi. cudurka caabuqa ugu dambeeyo waxaa waaya caabuqa shanaad waxa loo yaqaano group B streptococcuska. group B streptococcuska mostly hooyada wuxuu ku dhacaa xilliga ay dhalayso. markuu kugu dhaco cunugii maaragtay inuu pressurkii uu ka dhaco, wadna garaac zaa'ida, xanuun oo infection bacteria lagu sheego. cunugii markii uu sidan u dhashtaba maadaama xilligii dhalmadii ay very safe ay ahayn, dhalmadii wax wasaq ay dhaceen mise dhibaatadii infection meesha ka dhashay, sidaa darteed inaad ku dhashid cunugiina uu maaragtay uu sidii ugu dhaco infectionkii ayaa dhici karta. marka waxaa loo baahan yahay inaad si fiican iskaga daaweysid meel wanaagsan oo saafi ah aad ku dhashid. marka gabagabadii gunaanadka barnaamijka waxaa waaye shantani caabuq waa iga digniin, waa iga waan, iska ilaali, waa iga talo, iska ilaali meel walbaad joogtid si wanaagsanna iskaga daawey. haddii aad adiga hooyo cunugeeda dhalaankeeda ka naxaya aad tahay adigii nafsadaada aad ka naxaysid iska ilaali cudurkani. shantani cudur gaar ahaan hepatitiska, toxoplasmosiska, listeriosiska kulligood waxaan soo wada sheegay oo idil iska ilaali maadaama saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa adigii iyo cunugaagaba saameyn weyn buu ku yeelani doonaa oo maaragtay dhanka caafimaad ah. haddana waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadka barnaamijka. waan ku faraxsanahay in aad dhamaysatay, waan ku faraxsanahay in aad cilmi aad ka kororsatay. waxaana kaa codsanayaa inaad naga ilowin channelka subscribe-ka, share-ka u gudbi asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan. calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.